dabadayaal qaybtan waa qaybtii labaad ee wararkii iyo warbixinadii dhinaca diblomaasiyadda aan ku siqno wararka dabadayaasha qiimaha leh farkama qodne dawladda isku tagay Imaaraadka Carabtuna waxay gordhaweyta ku dhawaaqday inay joojinayso hawlgaladii iyo weeraradii cuslaa ee ciidamadeedu ay horkacayeen ee ka socday magaalada Xudayda iyo taageeradii lixaad ka lahaa cir iyo dhul ahaa ee siinaysay ciidamada dawladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi Yaman ay ka wadeen magaalada Xudayda ee galbeedka dalkaasi ee ah tan badda casaaran warqoraal oo soo dhigay barta Twitter-ka wasiir dawlaha arrimaha dibadda dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta Dr. Anwar Qarqaash ayuu wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan loo hakiyay xabad waxaan soo dhaweynaynaa buuri si socoshada buuri dadaalada uu wado xogayaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalkaasi Yemen Martin Griffiths wuxuuna yiri waxaan runtii aan u rajeynayaa in uu ka gaaro guul buuri in si shuruud la'aan oo kooxda Xuuthiyiinta uga saaro magaalada Xudayda ee tan dekadale ayuu ku qoray Twitter-kiisa Mr. Qarqaash Dr. Qarqaash wuxuu yiri waxaanu joojinay ama hakinay oo haatan keebka farta laga qaaday dhamaan xabadii aanu ku shubanay buuri kooxda markaasi wax qarbuda ayuu ku hareeraysan magaaladaasi wuxuuna sheegay in ay doonayaan in ay rajo fiican siiyaan isla markaana ay siiyaan fursad ay qaramada midoobay ay kooxdaasi ay ku siiso dooq wanaagsan oo ay uga dad gureystaan halkaasi Mr. Qarqaash wuxuu ka digay in xabaddu goor kasta ay bilaaban karto hadii ay kooxdaasi diidaan inay nabad qaataan waxaana Mr. Griffiths hadeerta xogayaha qaramada midoobay ama ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen Martin Griffiths uu ku sugan yahay magaalada Sanaa asagoo doonaya in kooxda Xuuthiyiinta lagu tirtirsiyo inay magaalada si nabadgelyo ah ka baxaan si xabadda iyo dhimashada dadka lixaad kale ee gaaraya boqolaalka kun ee ruux ku sugan magaalada aysan dhibaato u soo gaarin isagoo la hadlayay raadiyaha ku hadla afka qaramada midoobay ayuu wuxuu sheegay in golaha amaanka qaramada midoobay ay week dambe ama toddobaadka dambe ay kulmi doonaan si uu warbixin uga siiyo guulaha ama wuxuu yiri habsamayo socodka arrimahan waan tahay halkaas ka socoto isla markaana ay golaha amaanka qaramada midoobay ay sharciyayaan qaraar markaasi magaalada looga saarayo kooxdaasi hase yeeshee dalka Carabta ee uu kamid yahay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta Saudi Arabia iyo dawladda la aqoonsan yahay Cabdirabbi Xadi Mansuur ee taagta daran ayaa u arka kooxdan in ay waqti dheeraysi ay ka tahay balse aysan doonaynin inay si nabad ah uga baxaan deegaanka shalay ayay ahayd kordhi markii la qabtay boqolaal qoryaha danadooriga u dhacay iyo gantaalaha burburiya baabuurta waaweyn ee gaashaaman oo la aaminsan yahay in dawladda Iran ay ku soo qarqinayso dalkaasi Yemen halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinadii diblomaasiyadda ee haatanna Trump iyo Soomaaliya madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump oo horay dalalkii uu cadaadiska xooggan u saaray isla markaana dadkooda uu sheegay inay yihiin kuwo wax qarbuda inay soo galaan dalka Mareykanka aan looga baahnayn ayaa haatan wuxuu dhambaal u soo diray shacabka iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Donald Trump ayaa fariin ku aadan hambaliyada munaasabada maalmaha xorriyadda ee kowda Luulyo 26 Juun u soo diray madaxweynaha Soomaalida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka Donald Trump ayaa fariintiisa ku bilaabay mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca dawladda Mareykanka iyo shacabka waxaan adiga iyo shacabka Soomaaliyeed u soo gudbinayaa dhambaal hambaliyo ah oo ku aadan sanad guuradii 58 ee maalmaha xorriyadda ee dalkiina dawladda Mareykanka waxay naawilaysaa inay jaal la ahaato shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay u gaaraan mustaqbal ifaya ka wada shaqeynta dhismaha deganaansho nabad iyo barwaaqo in Soomaaliya hesho waa danta labada qaran waana sii wadaynaa taageerada dhabihii arintaas lagu gaari lahaa ayaa lagu sheegay warka dhambaalka sidoo kale waxaa hoosta laga xariiqay in dawladda Mareykanku ay abateed xoogan u hayso taageerada iyo wax loogu yeeray تخنت بالي دولة نمدا Soomaaliya iyadoo dhidibadal ay tahay loo taago dawladda dimuqraadiga oo adag oo amniga gobolka geeska Afrika ku yaala wax weyn ka bedeshay waxa Mareykanku uu sheegay in uu xoojinayo la shaqeynta ciidamada qarabka sida dalkaasi Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya ee taageeraya balay kuwa sida gaarka u tababaranay Soomaalida si loo bacsado balay kooxaha wax qarbuda isla markaana gacmaha looga guro ka hor intaysan dhibaatadoodu soo wada gaarin balay caalamka gobolka iyo Mareykanka laftiisa madaxweyne Donald Trump ayaa ku tiqtiqsaday hadalkan waxaana u muuqataa in madaxweynaha oo toddobaadkii hore uu maxkamadiisa sare ee ansixisay in dadka Soomaaliyeed ee lixaad kale ee ku sugan dalweynaha Mareykanka aysan keensan karin eheladooda wadankii Soomaaliya ku sugan haatan uu dhinaca kale leeyahay waxa jira waxyaalo aan Soomaalida ka caawin karno waa hadii ay markaasi ay rumowdo inkastoo Mareykanku dhinaca amniga la og yahay inuu Soomaaliya ama dawladihii kala dameeyay Soomaalida uu si xoogan uga caawinayay gaar ahaanna حتى لو جاي إن معمولة مركز قاركود يضل كتير وكعوي أرمه أمني كل كي تماضو طب إيش قيمة عليه هل كان دجال ساعتان وورك يوجد ما يجي يروح لي عدل السيادة ولنا فرق ما قدنا طب إيش قيمة عليه
Iran oo iyaduna dagaal dhinaca saliidda ku dhawaaqday balse intaynan u gelin Iran dagaalka saliidda ee ku dhawaaqday haatan ay sheegayso inay sida xoogan ay u geli doonto oo haatan u muuqda in dagaalka inagoo hadda ka sheekeynay ama qodobkan ka horeeyay kaga hadlanay in dagaal xoogan uu si xoogan uga dhax socdo dalalka Mareykanka iyo dalalka kale haatan waxaad moodaa in iyadana xagga dalalka Islaamka iyagu dalalka safka hore kaga jira soo saarista saliidda iyaguna haatan ay ku dhawaaqeen dagaalkaas midowga Yurub ayaa wuxuu wajahayaa kala qaybsanaan xoogan kadib markii shirkoodii magaalada Brussels uu fashil ku dhamaaday ee ku saabsanayd qadiyada ku saabsan soo galootiga oo ay doonayeen in si wada jira guul looga gaaro qorshihii ay wadatay Angela Merkel oo hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka ayaa u muuqda mid cusubay kadib markii dalalka qaarkood ay veto dul dhigeen isla markaana ay sheegeen inaysan doonaynin sida ay Jarmalku wax u wadaan aysan hayn sax waxaa haatan muuqda in dalalka qaarkood ee midowga Yurub ku jira ay ka soo horjeesteen qorshihii ahaa in dadka qaxoontiga ee soo gala dalalkaasi lagu kala saaro ama lagu kala saafo qaab waafaqsan shuruucda maxkamadda reer Yurub iyo kan caalamiga oo dhigaya markaasi in si xoogan markaasi dadka kuwa dhibaatooyinka qaba dad baa jira dhibaatooyin amni qaba baa leeyahay oo kuwa markaasi jirdil qaba kufsi iyo dhibaato soo gaadhay ama wax loo yaqaano in loo eego bogga xuquuqul insaanka markaasi lagu qaabilo taasoo Jarmalku uu riixayay balse dalalka oo dhan ayaa diiday tan ayaa waxay ka dhigan tahay in caalamka haatan uu soo xidhay isla markaana dadka doonaya ama niyadooda ay ku jirto inay gaaraan wadamada Yurub ama wadamada kale ee qarbiga inay u dhamaatay isla markaana ay adag tahay inaad sharci iyo nolol ka hesho tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo 60 qof oo laga soo badbaadiyay xeebaha dalkaasi badan Mediterranean-ka ay diideen dalkaasi Talyaaniga inay qaabilaan ama la soo dhaweeyay hadeertana markabkii ay saarnaayeen uu warwareegayo ilaa haatan dal kaliya oo reer Yurub oo dadkaas dhibaataysan ee qaarkoodna dhintay qaarkoodna dhaawacan yihiin qaar u baahan yihiin kadib markii biyaha ay ku hafteen dawo degdeg ilaa hadda waxaa jirin hal dal oo qaabilay ama soo dhaweynay daawadayaasha qiimaha leh dadka Soomaaliyeed dhalinyarada waxaan ugu Hurfadhi Media naga daawanaya waxaan jeclahay inaan mar walba idinku boorino inaad iska ilaalisaan taariibka in waayihiisina dhamaadeen waqtigiisina adkaaday dhibaato xoogan ay ku haysato ku haatan taariibka aaday dalka Liibiya oo dad badan ku xirxiran yihiin kuwa badan lagu xabisay halkaas qaar la adoonsado qaar la jirtiro qaarna laga bataqalusay qaarna badda ku daateen waxaana taa ka fiican qof walba inuu ku fikiro deegaanka aad joogto magaalada hadda aad naga daawanayso ayaa muhiimad iyo nolol badan u taala wax badan aad ka sameyn kartaa shaqo aad ka abuuri kartaa qoys baad ku abuuri kartaa waxbarashaad ka aadi kartaa ayadaad u shaqeyn kartaa amnigeeda iyo horumarkeeda ayaa deegaankaaga meel walba joog meel kasta oo Soomaali uu joogo ayaan ka hadlanaa anagu dabcan waa muhiim daawadayaal inaad fariinteena si wadaniyad leh u qaadataan dalkeenna adawrtaane qodobka ugu dambeeya daawadayaasha qiimaha leh Iran ayaa sheegtay in ay dagaal la weerar celisa ku qaadayso dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka kolka ay timaado dhinaca dhaqaalaha saliid waxa ay Iran ku dhawaaqday in ay soo saari doonto balaayiin shidaal ah si ay u caawiso dhaqaalaheeda soo koraya Ishaq Janhangiri oo madaxa ku-xigeenka u qaabilsan shirkada aan iraahdo ururka u qaabilsan shirkadaha caalamka shidaal soo saarista OPEC ayaa wuxuu sheegay in isku dayga Sacuudiga iyo Mareykanku ay doonayaan inay ku bari furaan isla markaana ay ku dhabeeteeyaan suuqyada Iran ee shidaalka taas ay loolankeeda u diyaar garoobaan waxa uu hoosta ka xariiqay in ay dawladdu haatan wixii ka dambeysay ay ku wareejin doonto shidaal soo saarista iyo dhoofista shirkado private ama kuwa gaar loo leeyahay oo dunida oo dhan ka tirsan waxayna sheegeen in ay albaabada u furayaan maalgeliyaasha caalamka oo dhan qof kasta oo lacag sita oo doonaya inuu shidaalkooda geeyo dalkiisa ayay ugu baaqeen inuu yimaado dalka Iran waxaan malay dad badan oo Soomaali haday lacag haysan lahaayeen Iran ay aadi lahaayeen daawadayaasha qiimaha leh wuxuu sheegay waxaan hubin doonaa dagaalka uu Mareykanku ku dhawaaqay isla markaana uu adeegsanayo dalal gobolka oo walaalaheena buu yiri in aanu uga hortagno sida ugu dhaqsaha badan taas oo aan uga jawaabano waxaan haatan u sheegaynaa dunida ganacsatada iyo dadka waxaysta inay Iran soo dhaweynaysa baa leeyay in aad shidaalkanada qaadataan asagoo ceerin iyo asagoo aan ceerin ama markaas la kala saafay ama la saafay kadibna hadalkiina gebisan isla qiimo jaban ayay ku dhawaaqeen waxay sheegeen inay kor u qaadayaan soo saarista wuxuu yiri hadii alla idmo waxaanu la nimin qorshe weyn waxaanu la heshiinay shirkado waaweyn waxaanu wadada ku soo jira maalgashadayaal xooggan waxaanu ku dhawaaqanaa idina sheeganaa ayay yiraahdeen in aanu albaabada u furnay baa leeyay iibsadayaasha oo dalalka ugu waaweyn haatan shidaalka ka qaata dalkaasi Iran ee ka mid tahay India iyo Shiinaha ayaa la sheegay in ay ka mid tahay dalalka cadaadiska Mareykanku uu saari doono waxaana dhici karta baa leeyay in Shiinaha uu arintaasi Mareykanku uu ugu yeero inay ku bedeshaan ganacsiga uu la leeyahay
ula leeyahay dalalkan ama ula leeyahay dalkan Mareykanka ay kaga bedeshaan inay joojiyaan saliida ceerin sida weyn uga daldashaan halka Hindiyana sidoo kale la rajeynayo in cadaadis noocaas oo kale uu saaro daqiiqada ka hor kolkii go'aanka Iran ay soo saartay iyada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in dal kasta oo wuxuu yiri ama shirkad kasta oo ka tirsan buu dalalka qarbiga hadday yihiin xataa kuwa reer Yurub oo la ganacsada buu dalka Iran ama shidaalkiisa iibiya waxaanu saaranaa cunaqabatayn dagaalkii saliida kii dhaqaalaha kii siyaasadda kii hubka nuclearka oo soo laabtay shalay aad maqlayseen in gudiga markaasi loo yaqaano gudiga dabagalka markaasi sirdoonka Mareykanka ku dhawaaqay in waqti dhumis tahay waxa ay wado waqooyiga Kuuriya dhamaantood wada soconayaan markaasi dhibaatooyinka xooggan ee caalamkana war walba ay sii xoogaysanayaan hurfadhi media kolobla ku xidhow amaanaal